يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع الله لا ربنا اجعلنا مسلمين لك وليتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وحيثما كنتم وجوهكم شطرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن كذية channel ما أنت حنصوب وقناي إلهي هون حريست قرقي إسماعيل عرورتي وكتجي أيان صوب وقناي إسماعيل وحوي ونين أتقرني سين قبل دلتي إسماعيل حال دلتي وسيركي هراء أريمها دبدا كينيا آمنة أهيدنا وسيرك وحبرشدا هذانا وسيرك عيارها حافظة أيانا شوقنا علمنا وانا لا شوقتا dad badan oo waxa weeye ayaayana jooga oo tacsiida ka soo qayb galay marka koowaad waxaan ku soo dhaweynayaa Sheekh Cabdirasaaq maxaad ka leedahay Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh marka koowaad waan salaamayaa dhammaan walaalaha muslimiinta ee Soomaaliyeed maanta waxaan u nimay xaafad qaraabada oo tacsi ah sida uu sheegay waan Cabdiwali Ismaaciil Maxamed Jibriil oo dhintay maalin dhaweyto Ilaahay u naxariisto hindii ku dhintay halkana lagu caasay ayaan xaafadiisii joognaa caruurtiisii iyo walaalihiis baa jooga markaasaan insha Allah taala inaan u ducayno u tacsiino markooda waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa taala ehelkii qaraabada samiri iimaan Allah ka siiyo Ilaahay subhanahu wa taala bedel khayr qaba Allah siiyo isagana Ilaahay jannada ka waraabiyo dambigiisa iyo dambiga waalidka Allah dhaafo qabrigana Ilaahay waasiyo beeraha jannada kamid Ilaahay uga dhigo cadaab qabri cadaab jahannam Allah ka badbaadiyo marka إسماعيل كل دتك أدم يقانين وحي أدو يقانين أحمد ولالكيسة إيوه آمنة محمد جبريل وأهان ترتي سيدا المعلم كذي شاغي وسير كهوري أرمها دبدا كينيا وأنا وسير كوبات ومسلم وأرمها دبدا لقدقه تاريخ كينيا أنت اللي أقنعي واللي يتمنى قبالي يقف مسلم وهذا ناس صوماليا وسير دي كوبات ونقطي أرمها دبدا ومسلمة وصوماليا وأنا وزيرة شقة بدن قدن كوسو قبتي قارهان دلك كينيا مر لبادنا waxay noqotay wasiirka tacliinta haddana waxay tahay wasiirka isboortiga marka caruurtiisii baan u tacsiinayna walaalihi dhamaan ehelkii qaraabada xaafadii waan soo booqanay waa xaafad barakaysan masaajid baa ku dhex yaala meel barxado waasica oo dadka maaragtay loogu duceynayo quraanka loogu akhrinayo marka waa anagoo dad ehelka iyo qaraabada ah oo u akhriyana maanta maaragtay quraanna u akhriyana u duceynayna soo booqanay marka rag asxaabta iyo dad kale wayna la socdaan marka waxaan leenahay Ilaahay ha barakeeyo caruurtiisa iyo ehelkiisana kuwa baariina Allah uga dhigo oo maaragtay waalidkood wax u sadaqadeeyo oo u duceeyo oo walad saalix qofku markuu dhinto sida rasuulka noo sheegay kaleey salaatu wasalaam يعني صدح شيء راعي مالكيسي إهلكيسي يا عملكيسي إهلك يا مالك ويكسر لابنيان عملكم بباقي كوهاني سجن خير بدل ما ورجينا نودها ميدتك وعكدقة سودسي قارهان مسجد النور ضدك ميدتك كردقة وجناسة الديارية يكمل ذها خير بدل ما ورجينا ضدك سعودي وحقوسه برتب وكمل ذها والسعودي كان كشقي سنتري اللغة العربية الدين تيجي المساجد كانت كجرنسة مساجد بيقولوا كأساسي مكتبات يربولية كتب بولية واحد بدل بكتجي marka iyagana waxa ka baryaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala in caruurta uu ka tagay waa dad waaweyn inay noqdaan dad baari oo waalidkood wax u sadaqadeeya dhamaan ehelkii qaraabada Ilaahay samiriye mana ka siiyo asxaabta maartay maanta ay kamid yihiin macallin burhaan iyo macallin Cabdiwali macallin Cabdiwali iyo macallin burhaan waa salaaman yihiin dhamaan ehelkii qaraabadana waa salaamaya ha loo soo wada duceeyo
nin kasta halkaas u gelaya waa godkaas qabrigaas nin kastoo hantile iyo nin kastoo magac leh iyo nin kastoo madax la dhashayba waa la wada dhimanaya laakiin maxaa la rabaa in loo sahay qaato waa la dhimanaya keligeed waxa ku tarmayso maaldahaas markii mid kale aasi dad baan wax lahayn nin walba bini aadanka dhan wada mitir baa u dambeeya ha u dambayso laakiin qofka muslimka hadafkiisa waa inuu janno galo oo ilaahay raali geliyo cadaab ka badbaado ma aha 2 mitir baa la gelaya gaal iyo islaam waa la ogay 2 mitir baa la gelaya maxaa ka horeeya ma cadadta maxaa u diyaarsatay maxaad sahay qaadatay war intaad nooshahay saa qaado laakiin haddaad tiraahdo naf wali waa dhimanaysa oo iska socoto waxna aadan shaqaysan dee xayawaan baad noqonaysaa marka naf wali waa dhimanaysa waa la ogyahay maxaad shaqaysatay wax hormarso baan leenahay dadka geeridana xasuusnaada ilaahayna subxaana wa tacaala inta xanuunsanay muslimna allah caafiyo intii dhimatayna allah u naxariisto cudurka covid-19 oo waddankan aad buu ugu yaryaa umalayn laakiin la leeyahay muqdisho ku badan yahay waddankii hooyo waddankii Soomaaliya ilaahay iyagana ka caafiyo ilaahay ka badbaadiyo halkana ilaahayna ka badbaadiyo muslimku meelu jooga America iyo Yurub iyo Australia Mareykan iyo Yurub iyo UK meel alla meesha muslimiin joogaba ilaahay cudurka ka xafido ilaahay maaragtay hayna ilaaliyo covid-19 intii u dhimatay muslimiintana Allah u naxariisto darajada shuhadada Allah gaarsiiyo inta wahayana Allah ka caafiyo marka aad iyo aad baan idin salaamay oo jazaakumullahu khayr السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وحا إلى جوجا صاحبك برهان إساقنا وحان ربا إنا كسر ويو أو كلمتي وينقاده لها أن أرقنو هاي برهان كسر ويو والله ما شاء الله ومع سنتي عبدوليو maanta waxaan joognaa guriga uu ka dhintay Ismaaciil Maxamed Jibriil ay ninkii walaalahaayeen Aamina Maxamed Jibriil wasiirada hore arrimaha dibadda waxbarashada iyo haddana waxay tahay wasiirada ciyaaraha iyo sportska marka de waxa uu nimina uu tacsiino ilaahay uu naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un kullu nafsin da'iqatul maut qof kasta waa dhimanaya marka waxaan leenahay ilaahay magarata uu naxariisto ilaahay qabriga ha waasiyo marka insha Allah isagana uu tacsiina uu nimi waan dhimanaya haddii ilaahay qof kasta uu og yahay إن شاء الله وحن كعصنا يوم المسلمين تاني يسود عيان إن كأولال كنا ما تنجح هوسية عاد بني السلامة يا ملك استأجوك تانين معلومة أكثر من له هذا أنا وحيل تشوجا أستاذ عبد الولي أو إسقنا عن رجيني إنه كلمة سكرها كسره أستاذ عبد الولي. عبد الولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومدة مسلمين تاني ملك استأجوك تاني السلامة سلامة الإسلام كانت سلامة هلكم حانوا تعسيد وين أمينة محمد walaalkii ayaa dhintay marka halkaan lagu aasay marka waxaan joognaa maanta waa ducaynaa halkaan nimi anagoo isku duuban oo macallimiin badana macallin Cabdirasaaq macallin Cabdiwali anigoo Cabdiwaliya macallinka kale oo dhinaca dhigixigo macallin Burhaan loo halkaan uga tacsiyeena marka waxaan leenahay ilaahay sabir iyo iimaan ka siiyo waxaan leenahay ilaahay weynaa waaxidka jannatul firdaws hageeyo annagana markaan dhimanaha nooga daba naxariisto marka qof walbana maalin buu dhimanaya marka aan soo ducayno oo u ducaynayna waxaan leenahay ilaahay weynaa waaxidka sabir iyo iimaan ka siiyo waxa weeyaan qof kasta markiisa ayuu dhimanaya waxa weeyaan aan soo saamaxno ilaahayna waxaan ku xanuunka corona inaga qabto oo meel kasta jooga marka aad iyo aad baan idin salaamaya waxaan leeyahay ilaahay ayna caafiyo ilaahay balaayada inaga hayo ilaahay weynaa waaxidka waddanka nabadha inooga dhigo marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. haday iska ku arkaya هاي وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة معك أبو في الساعة